waxaan rabaa inaan usoo gudbiyo halkan ka codsado in maxkamaddu ay ka bariyeesho muwakkilkayga Korneel Cusmaan Xasan Cosoble sidoo kaleeto hordhicii hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda madaxdeeda ay ka hor dhaceen maxkamadda inay maxkamadda amar ay ku siiso in muwakkilkayga xuquuqdiisii uu lahaa waa nin sarkaala shaqeeya wadanka xuquuq ku leh ma ahayn maanta ma mudnayn asigoo qof eedeysana maxkamadda waa dareemi karnaa maxkamadda waxaan rabnaa inaan dareensiino meeshaas ma dhicin horeyna ma dhicin haddana wax la maqlay lana arkay maahan in qof eedeysana ah xuquuqdiisii shakhsiga ahaa lagu tacadiyo dhammaanna eedeysanayaasha inay yihiin ayaan filayaa sidaas wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa maxkamadda sharafta la si naxariis loogu codsanayaa kow in aysan aqbalin eedeynta xafiiska xiriirlaaliyaha guud ee lidka ku ahayd cabdalla maxamed axmed labo in maxkamaddu aqbasho doodeena isdifaaca iyo cadeymaha isbariyeelista ah ee aan soo gudbinay kuna saabsan dukumiintiga ay xeer ilaalintu soo gudbiyeen